السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود اللي دلكين ميل كستو الدنيا دك جوجتان آد بان idin salaamayna halka aad naga daawanaysaan waa Hattrick Official haday tahay marka kugu horeysay soo booqatay channelka fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada anaga aan soo gelino ku soo dhawaada muuqaal cusub maanta waxa filayaa inaad aragtaan inaan kula bisanahay dareeska calanka Soomaaliyeed marka waxa idin leeyahay horta hambaliyo toddobaadkii xurriyadda gabagabadiisa sii marayna waxaan jeclaaday muuqaalkan inaan idin la wadaago waxaana joogaa meel yani daramacaanada dhaho oo loo dalxiis tago marka waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago kilibkan aad ku quruxda badan inaan markaas idin soo gaarsiiyo si mar walba ay noqoto aniga daawadayaasheeda meel kasta aniga aan joogo iyo wax walba isleeyahay waa ay qurux badan yihiin inaan usoo gudbiyo muuqaalka dabcan toddobaadka xurriyadda anagoo ku jirna haddana waxaan u baahannahay dabaaldegeena inaan sii wadano waayahay waxaan filayaa channelka inaa meel fiican gaarsiiseen annagana toddobaadka xurriyadda waxaan idinkula qaadanaynaa jawi degan iyo weliba si xamaasad ay ku dheexan tahay annagoo weliba matalayna shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed anigoo matalaya walaalkiina Xasan Hattrick marka waxaan jeclaystay muuqaalkan oo aan idin la wadaagayo in markaasi aad commentiga nagaga farxisaan dabaaldega kowda markaasi July ama luulyo si aad u taqaanaan waxaan filayaa muuqaalkan aad ku wanaagsan oo markaasi bilicdeeda ku dheehan tahay jawi degan ay tahay ayaa markaasi idinku talagalayna muuqaalkan idin soo duubo channelka ma sha Allah waad iga farxiseen Allah idinka farxiyo dhamaantiinaba taageero badan baa ii muujiseen Soomaali Maxamed meel kasto idinka aad joogtaan qaasatan dhalinyarada aad baan ugu mahad celinayaa oo markaasi ka qayb qaatay in channelka markaasi oo horumarkiisa aad ka talisaan oo weliba aad share gareysaan asxaabtiina waxaana ku faraxsanahay sida quruxda badan oo markaasi idinku aad igula qayb qaadanaysaan barnaamijkii su'aalaha waxaan filayaa in ay noqotay barnaamij ku socon waayay in aan soo duubo aniga laakiin ay noqotay in public aan u tago marka waxa idinka balan qaadaya in shacabka Boorama markaasi barnaamij public aan ugu dhigi doono su'aalahan idinkuna hal su'aal aan idinku dhaafi doono si aad ugu soo jawaabtaan dhanka commentiga markaasi hadiyada aan ku bixino insha Allah waa meesantiin dhamaantiinaba xurriyad wanaagsan toddobaadka xurriyaddan ku jirnaa marka waxaan rajeynayaa qof walba inuu wadankiisa u duceeyo wadanka anaga iskale wadankeena waa wadan anaga aan u baahana waa wadan la rabo inaan anaga dhisano waa wadan la rabo inaan anaga taageerno meel fiican buu maraya wadanku wuxuu nooga baahan yahay kaliya taageerid inaan u muujino aan markaasi boonboonino meeshaan marayno waxaan ognahay meeshaan ka soo tagnay inay tahay meel aad u liidata laakiin hadda maanta waxa dunida aan tusnay in Soomaali ay soo kabsatay kaliya u baahan tahay markaasi in qulubtooda Ilaahay isku wanaajiyo marka qof walba Soomaaliyeed waxaan leeyahay in aad taageero u muujiso wadankaaga muhiim ay tahay kilibkan hadduu ku soo gaarana please share garay fadlan si markaasi u gaaro dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhiirigelin ay ugu noqoto dhalinyarada Soomaaliyeed marka walaalayaal waxaan markaas isku boogaadinaynaa in wadankeena aan jeclaano aan buunbuunino aan ka dhigno meelaha quruxda badan hadda aad baan ugu mahad celinayaa dhalinyaro fara badan oo gobolada dalka joogta in ay soo sawiraan meelo aad u qurux badan kadibna ay baraha bulshada ku faafiyaan taasi oo wax aad muhiim ah waana wax la jeclaysto ma sha Allah iyagoo weliba damaashaad u tagaya taas aad baan ugu faraxay sidoo kale waxaa jira annagu haddii aan nahay Soomaaliya waxaan looga baahan yahay horumarkeena inaan ka talino wadankeena wuxuu ka mid yahay wadamada markaasi la liido laakiin annagu waxaan tusaynaa la rabaa inaan muujino in wadanku uu yahay wadan aad u qeyr badan waa wadan oo markaasi qof walba hami uu u leeyahay markaasi inuu soo galo oo yacni ka qayb qaato sida uu rabo inuu wax u dhiso dalxiiskan yar aan soo baxay ayaan kaga faa'iideysanayaa kilibkan inaan idin soo gudbiyo waxaana filayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qulubtooda isku xiro oo annagana dhalinyaro ahaana taageeradeena aan muujino si aan u noqono dadka hormuudka u ah wadankooda kadibna ay rabaan in wadanka horumariyaan waa maasantiin dhamaantiinaba kilibkan aad ku qurux badan aad daawateen haddii aad ka hesheen fadlan like saar siina share garay maasanid